Waxaa jiray 3 nin oo saaxiibo ahaa kuna noolaa magaalada Andalus. Waxay 3dan nin ka shaqayn jireen xirfadda dameeraha oo dadka ayay u rari jireen alaabta. Waa sida imika loo adeegsado gawaarida. 3dii nin ayaa haween wada fadhiistay ayagoo wada caweynaya. Kadibna waxay isweydiiyeen, maxaad rabtaan inaad mustaqbalka noqotaan? Laba ka mid ah 3dii ayaa dhahay, anagu waxaan rabnaa in dameeruhu noo kordhaan, kolkaasna qarash badan na soo galo. Ninkii saddexaad oo la dhaho magiciisa Muhammad ibnu Caamir ayaa yidhi, anigu waxaan rabaa inaan noqdo madaxweynaha ama khaliifka dowladda islaamka ee Andalus. Labadii nin way cajabeen oo madaxay qabsadeen, ayagoo rumaysnaa inaanay marnaba arrintaasi suurtagal noqonaynin, sababtoo ah khaliif waxaa noqda nin aabihii khaliif ahaa. Midda kale, nin dameerle ah sidee buu u gaari karaa kursigaas ayaa ku cuslaatay labadii nin. Ninkii wuxuu yidhi isagoo la hadlaya labadii nin, haddaan khaliif noqdo maxaan idin siiyaa? Mid baa dhahay, aniga qasri weyn iyo 4 haween ii guuri. Kii kale ayaa dhahay, adiga haddaad madax noqotid waxaad madoobaysaa wejigayga, kadibna lugahayga ku xirtaa faras ama dameer, oona suuqa igu soo wareeji adigoo leh kani waa beenaale. Ninkii dameerlaha ahaa wuxuu bilaabay maalintii xigtayba in uu iibiyo dameerkiisa. Dadkiina waxay ku leeyihiin, war maxaad u iibinaysaa dameerka? Maxay reerkaagu quudanayaan? Ninkii umuusan joojin warkii dadku akhrinayeen ee wuxuu iibiyey dameerkii. Kadibna wuxuu soo gatay dharkii askarta iyo hubkii askarta, isagoo si toos ahna u tagay saldhigii ciidanka. Ninkii askari ayaa laga dhigay, wax mushahar ahna lama siinin maadaama aanu lahayn wax khibrad ah. Hase ahaatee ninkii waa uu dulqaatay ilaa maalmo la ogaaday daacadnimadiisa. Kolkuu muddo shaqeeyey ayaa la dalacsiiyey, wuxuuna noqday xidigle ama wax u dhigma. Haddana wuu dadaalay ilaa uu ka noqday hogaamiyaha ciidanka dowladda oo dhan. Muddo 30 sannadood markay ka soo wareegatay dhacdadii ayaa waxaa bukooday ninkii khaliifka dowladdaas ka ahaa oo ka tagay ilmo yar oo 10 jir ah. Kadibna wasiirkiisa difaaca ama hogaamiyaha ciidankiisa ayuu u dardaarmay inuu qabto jagada madaxtinimada inta uu wiilkiisa ka korayo. Khaliifkii waa u dhintay, ninkiina sidaas ayuu kursigii uu ku haminayay uu ku gaaray. Maalintii dambe ayuu ninkii askartiisa diray oo faray in ay soo baaraan 2 nin oo dameerlayaal ahaan jireen. Dabadeedna subxaanallah, 2dii nin oo bartoodii weli jooga ayaa loogu yimid. Kolkaas buu madaxweynihii dhahay, ma i garanaysaan? Waxay yidhaahdeen, haa, warkaaga waan maqalnay inaad heer gaartay. Kadibna wuxuu 2dii nin weydiiyey su-aashii uu habeenkii weydiiyey. Ninkii hore ayaa yidhi, boqorow, anigu waxaan ku weydiistay qasri iyo inaad ii guuriso haween badan. Markaasuu boqorkii askartiisa faray in la siiyo wuxuu doonayo. Kii kale ayuu boqorkii ama madaxweynihii la hadlay.